cudurkan aniskuma ogeyn marka waxaan u haystay inuu hargab caadi yahay marka adile maalintii shaqada tegayay maalintii ka horreysaan waxay meesha shaqada waxaan ka shaqeeyaa meel xarun caafimaad oo magaaladan Helsinki ku taasha marka waxay dhaheen haddii xoogaa hargabka ka hayay shaqaalaha qaar ka midana waan baaraynaa marka sida aawadeed baaritaan aan ku marinaynaa marka waxay ka qaadeen baaritaan yar oo baaritaankiisu waa sanka la geliyaa bahal yar qor yar lagu wareejiyaa sida looga soo qaado kabacdina baaritaankii wuxuu qaatay wax ka yar adiga 24 saacadood bas maalintii jimcihii hadda dhaweeday soo waceen waxay u yiraahdeen waa positive oo caabuqii waa laga helay marka maxaad dareentay markii lagu yiri fayraska corona ayaa laga helay wallahi hadda mar hada fiirisid waxaan dareemay hadda cabsidaas way iska wada jirtay laakiin waxaan dareemay xoogaa walwal waan dareemay inkastoo arrinka ugu badan oo aan dareemay ka mid tahay in aan ka xanaaqay maalmo badan aan waxaan u tegay dhakhtarka waxaan ku yiri niyo bahalkaas la iga baaro marka waxay dhaheen calaamadihiisa ma lihid marka dad badan oo waayeela joogo baaritaanka dad badan ka horeeya marka iska sug laakiin wallahi walwalka ugu badan aan dareemay nafsadeeda maysan ahayn sababtoo xoogaa cudurka waa la socday runtii arrintan waa arrin naxdinteeda leh marka sidee haddana lagu ogaaday inaad ka fiyowdahay tasbigii hore waxaa laga qaaday arbacada laga qaaday marka way soo waceen waxay dhaheen xanuunkan hadda ku haya goorma dareemaysay oo u sheegay waxaan ku yiri ilaa 12 beri hargab caadi inuu waxyaan u haystay marka waxay xisaabiyeen waxay dhaheen 14 maalmood uu ku hayaa sabtidii ay waceen waxay dhaheen waxaan ka qaadanaa tasti labaad oo ah mid degdeg ah oo si degdeg aan ku baarayna sababtoo faylku uu badan yahay adiga 24 saacadood maqaanaada maragta baaritaanka sida wadeed mid kale iga qaadeen sabtigii waxay igu soo jawaabeen 10 saacadood gudahood habeenkii ii soo sheegeen markii habeenkii ii soo sheegeen meesha shaqadan waxaan ku cudurku waa laga waayay dhakhtarku uu fasaxo uu yiri meesha rabtaad aadi kartaa marka waxay dhaheen shaqalaanan haysabe bari shaqada ma soo geli kartaa sida wadeed shaqadeedan ku laabtay marka sidaad ii sheegtayba baaritaan labaad ayaa lagugu sameeyey waxaana la ogaaday inaadan cudur ka qabin marka taasi soo shaki ma gelin karto hanaanka baaritaan ee Finland taa ma sheegi karo laakiin haddaad fiirisidaan markay dhaheen cudurka waa ka helnay waxaan baaritaan wada geliyey dhammaan faalmiga oo dhan weliba xaaskayga waxay umusay isla jimcihii maalintii laysoo sheegay uu mushay marka iyada cabsi badan uu qabay marka adiga calaa kulli xaal faalmiga oo dhan waxaan geliyey baaritaan dhammaantoodna waxaa lasoo dhahay negative marka lagugu sheegay cudurka ma iskarantiilad ayaad gashay mise qoyskaaga ayaad ku dhex jirtay cudurkan waa laga helay markii la yiri gooni aan u baxay guri kalaan aaday baaritaankii labaad markii hadda laysoo sheegay inaa negative ay markaas qoys ku soo laabtay oo iyagana loo soo sheegay inay dhammaantood negative yihiin sidaad ka dhawaajisay bashaqadaadii ayaa dib ugu laabatay maalin kadib marka bal ka waran dareenka dadka aad isla shaqaysaan maxaad kala kulantay shaqaalaha nidaamka halkan iyo nidaamka wadankeeni hoogaa way kala gedisan yihiin markuu qof ama dib ku dhaco ama tan oo kala timaado dhammaan shaqaalaha looma wada sheego inuu qofkaas yahay waxa aan u sheegay keliya ninka shaqaalaha haysta kor ka haysta marka sida wadeed inta meeshaas ogeed shaqaalaha waxaa ku jiray wiil oo dhalinyaro Soomaali oo wada shaqeeyno aan u sheegay labada kaliya ka warhayay iyo ninka meesha haysta laakiin dadka kale shaqaalaha looma wada sheegin haraba bulshada Soomaaliyeed inaan uga sheego hada wixii Ilaahay keeno iska qadarin yihiin cudurkan corona de xabsidiisu way badan tahay waa laga warhayaa laakiin waxaa muhiim ah inaynu isku qarino dadka qofkii qaba uu u sheego bulshada Soomaaliyeed ee kala suusan cudurkan ugu dhex faafin tusaale ahaan maalmihii aniga aan soo dareemay hargabkan nafsadeeda waxaan geliyay mataqaanaa guriga inaan iska joogo maalmihii hore aan lagu soo sheegin marka dad badan oo Soomaali ah aan subaxnay oo magaalada dhex wareegayo calaamadiha aan lahaa anigu waqtigaas hadda la hagaajiro magaalada si caadi ah u shaqeysanayo dhahay markay aad la hadashay waxaan qabnaa hargab marka dadka Soomaalida waxaan u sheegayaa leeyahay waxaa haboon qof walba gurigiisa ku jiro intuu ka xaqiiqsanayo cudurkan inuu isagii yahay iyo inuusan ahayn